barnaamijka matalaadda maxkamadda oo ah tixane xiise badan oo idiin soo gudbinayso muqdisho cable TV ayna soo diyaariyeen ardayda kulliyadda sharciga ee jaamacadda simad kaas oo noqon doona tixane aad kala socotaan muqdisho cable TV waxaan qaybtan ku soo gudbin doonaa dacwad shaqo la xiriirta waxaa dacwoodo ah xasan xuseen xasan waxaa dacwaysana ah alraxiim general company maxkamadda darajada koowaad ee gobolka ayayna dacwaddani ka furan tahay qareenka dacwoodaha ayaa ku doodaya in shirkadda la dacweeyey ay sifo sharci darro ah shaqada uga erisay mid ka mida shaqaalaheeda taas oo baalmarsan sharciga iyo qaanuunka dalka u yaalla iyo shuruucda caalamiga anigoo ah yuusuf cabdiraxmaan waxaan barnaamijka maxkamadda ku matali doonaa garsoore taaliye qareenka dacwaysanaha qareen dhanka dacwoodaha abuukaatinimo qareen dacwoode qareen dacwoode qareenka dacwaysanaha qareen dhanka dacwaysanaha بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 8 bisha afraad ama abriil 2021 waxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka u fadhiisan doontaa dacwadda ka dhaxaysa dacwada xasan xuseen xasan oo ay qareena u yihiin abukaatayaasha kala ah abukaata cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi qadra saciid cabdulle safiya maxamed nuur kayd xasan daahir yuusuf sheekh maxamed cumar iyo dacwaysane alraxiim general trading company oo ay qareena u yihiin علي أحمد علي إيمان أحمد عبد الكريم نعيمة الشيخ أحمد حسين سليخة علي موسى يا عبد الرحمن عمر عبد الرحمن دعوة وكذا حيصل دعوة كذا حيصل إن عيدا أنصرك وصو حسين وحاول دعوة شقاء وكذا رتي إن حسن حسين حسن لقرر عدي شقادي وكهاي الرحيم جنرال تريدين كامباني كدبنا ودعوة شقاء كفرتي محكمة ده تاريخ المركز لبضي بيش ازدحال لبضي كون لبعتن يكوده intaynu toos u sii gelin maxkamadda waxay hubinaysaa waa kala haystaan soo maahan dukumiintiyada arjiga iyo kala haystaan soo maahan iyo warqadaha iyo jawaab celinta kala haysataan okay inta aan toos mataqaana aan u sii gelin waxaan hubinaynaa dukumiintiyada ay soo gudbeen dhinacyada wakaaladda ay soo gudbeen dhinaca mataqaanaa dacwoodaha isha mariya dacwadda ka dhaxayso dacwada xasan xuseen xasan iyo alraxiim general trading company waxay maxkamadda soo gaartay 2 bisha saddexaad 2021 bisha maars 2021 dhinaca oo dacwoodaha qareenadiisa waxay maxkamadda u soo gudbin doonaan sida ay ku sheegeen arjiga dacwadda marqaatiyaal iyo cadeymo ayaga oo maxkamadda ka codsaday in codsigooda ay maxkamadda ka soo codsadeen kow in laga aqbalo arjiga dacwadda in muwakilkooda si degdeg ah dib loogu celiyo shaqadii taasoo uu ku maareyn jiray nolosha qoyskiisa in la siiyo magdhow $10,000 ah in laga soo saaro xukun caadil ah in dacwaysanaha dusha laga saaro qarashka dacwadda iyo xushmadda qareenka dhinaca kale dacwaysanaha wuxuu maxkamadda u soo gudbiyey jawaabtaasoo ah in maxkamadda aysan u lahayn ikhtisaas ama dhagaysi ama aysan u lahayn mata xaq ay ku dhagaysato dacwadda asiga oo sabab ooga dhigay qodobka 134 farqooyinkiisa koobaad iyo labaad ooga dhigay haddaba inta aan toos maxkamadda aan loo gelin waxay maxkamadda dhinacyada ay ka soo qaybgalayaasha ku baraarujinaysaa inay ilaaliyaan nidaamka maxkamadda oo ay ka fogaadaan wax walba oo carqalad ku keeni kara habsami u socodka dacwadda si waafaqsan qodobka 89aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed dhageysiga dacwaddana waa mid dadweynaha u furan iyo ka soo qaybgalayaasha waa fadhi furan sida uu qabo qodobka 88aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed waxaa intaasi dheer qof aysan maxkamadda fursad siinin ma hadli karo si lamida qofna maxkamadda ma soo geli karo mana bixi karo ogolaansho la'aan maxkamadda intaas markaan ka soo gudubno waxay maxkamadda fursadda koowaad ee dhageysiga siinaysaa dhinaca dacwoodaha mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh wakilkeena iyo alraxiim company waxay wada saxiixdeen heshiis shaqo sida ku xusan xeerka la soo saaray sanadii xeerka shaqada iyo shaqaalaha ee soo baxay sanadii 1972
qodobkiisa 46aad lala akhriyo qodobada 88 89 ee xeerka madaniga Soomaaliyeed waxa uuna ahaa muwakkilkeena wuxuu maamulo ka ahaa qaybta Ar-Raxiim Company ay ku leedahay degmada Xamar Jajab taariikhdu markay ahayd Febraayo ee sanadkan 2021 waxaa muwakkilkeena laga ceeriyay shaqadii uu ka hayay ayadoon la siinin wax ogeysiis ah mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh Ar-Raxiim Company waxay si cad ugu xadgudubtay qodobka kontonaad ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha muwakkilkeena wuxuu xaq u lahaa in la ogeysiiyo shaqo ka ceerintiisa ee Ar-Raxiim Company Ar-Raxiim Company waxay ku xadgudubtay xaq muwaadin Soomaaliyeed sidoo kale waxay jibisay sharci waxa ayna hareer martay awaamirtii uu bixiyay qodobka kontonaad ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh muwakkilkeena wuxuu ahaa shaqaale guta waajibkiisa caadiga ah ama shaqo maalmeedkiisa waxa uuna ahaa qofka kaliya u dhaqdhaqaaqa qoyskiisa waxaanu ku xirneed 10 caruur oo hooyo la'aan ah mudane gudoomiye garsoore qof weyn oo maskiin ah oo 10 caruur hooyo la'aan korinayo macquul ma ahan in shaqadiisa uu si maalayacni u dayaco Ar-Raxiim Company ayaa shaqada ka saartay muwakkilkeena Xuseen Xasan ayadoo sababta ay shaqada ugu saartay ahayd in uu ku biiray ama uu ka tirsan yahay urur shaqaale ururkaas oo shaqaale ay ka wada tirsan yihiin shaqaalaha company-ga oo idil mudane gudoomiye garsoore in urur lagu biiro ama urur shaqaale lagu biiro waa xaq uu ku siinayo dastuurka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad faqradiisa 2 ee dastuurka kumeel gaarka ee Soomaaliyeed kaasoo sheegaya in laga mid ahaan karo urur shaqaale lagana qayb qaadan karo howlaha ururka shaqaalaha balse shirkadu aysan qodobkaas tixgelin meelna aysan ka tixgelin mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh aniga intaas ay ag tahay waxaan soo dhaweynayaa abukaatayaasha kale maxkamaddu waa maasantahay bismillaah alxamdulilah mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh annagoo ah qareenada u doodaya dacwaysanaha qareen ugu ah wakaaladda qareennimo ee galka ku jirto waxaan doonaynaa inaan maxkamadda u soo gudbino is-hortaag waafaqsan sharciga ee ku aadan awoodda maxkamaddu u leedahay inay kiiska aan hor yaallo mudane gudoomiye waxaan soo jeedinaynaa maqnaanshaha awoodda ee maxkamadda soo jeedintaas oo ii ogolaanaya qodobka 22aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed mudane gudoomiye qodobka 22aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed wuxuu dhigayaa inay bannaan tahay in la soo jeediyo maqnaanshaha wilaayadda garsooreed goor kasta iyo darajo kasta ay dacwaddu marayso sidoo kale si sidaas la mid ah mudane gudoomiye anagoo cuskanayna qodobka 26aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed oo noo fasaxaya inaan weydiisano in go'aan laga gaaro arinta ku saabsan wilaayada garsooreed ee maxkamadda ay waxaan soo gudbinaynaa weydiisashadana ku aadan go'aanka gaaridda wilaayada maxkamadda amba awoodda maxkamadda mudane gudoomiye dacwadaha wixii kale leeyihiin magacyo ay ka kasbadaan ama ka helaan dabeecadaha dacwaduhu way kala duwan yihiin dacwad waa dacwad shaqo dacwad waa dacwad maamul mid waa dacwad ciqaab way kala duwan yihiin magacyo kala duwan ay qaataan magacyada ay qaadanayaan waxay ka dhaxlaan amba ka helaan dabeecadda ay leedahay dabeecadda ay leedahay ayaa magacaasi dacwadda oo u yeelayo amba ka dhigaya dacwad shaqo amba dacwad maamul amba dacwad kale dacwadani waa dacwad shaqo maadaama u dhaxayso shaqaale iyo loo shaqeeyo
dabeecadda ah inay u dhaxayso shaqaale iyo loo shaqeeyo waxay ka dhigaysaa dacwad shaqo. mudane gudoomiye dacwoodaha wuxuu ahaa shaqaale ka tirsanaa jiray kambaniga qareenada u nahnay, wuxuuna ku shaqaynayay heshiis la yiraahdo heshiiska shaqaalaysiinta oo kambaniga la galay oo dhaqangal noqday. heshiiska way wada saxiixdeen loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha sanadkii 2008. mudane gudoomiye heshiiska ay wada galeen dacwoodaha oo hore u ahaa shaqaale iyo dacweysanaha ee shaqaalaysiinta wuu dhaqan galay, wuxuuna noqday sharci labada dhinac u dhaxeeya. sida ku cad qodobka 144 ee xeerka madaniga Soomaaliyeed, heshiisyada waa u sharci labada dhinac. qodobka 144 xeerka madaniga, heshiisyada waa u sharci labada dhinac. mudane gudoomiye heshiiska ay wada galeen marka dacwoodaha iyo dacweysanaha ee shaqaalaysiinta oo dhaqangal noqday sharcina u ah labada dhinac, asiga lagu maamulayaa labada dhinac. heshiiska qodobkiisa 11 heshiiska waa usoo gudbin doonaa maxkamadda faylka soo gudbinaynaa. qodobka 11 heshiiska wuxuu dhahayaa marka xaalad walba oo ka dhalatay heshiiskan haddii si afgarad lagu dhameyn waayo khilaafyada, waxaa la cuskan doonaa maxkamadda sharciga ee Soomaaliya si loo helo xal. qodobka 11 ee heshiiska wada galeen waa loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha. waa marka hore waxaa la isku dayi doonaa is-afgarad. marka is-afgarad lagu xalin kari waayo waxaa la soo aadi doonaa maxkamad. qodobka 11 ee heshiiska ayay ku qoran tahay oo u ah sharci labada dhinac. mudane gudoomiye dhinaca dacwadaha marnaba iskuma dayin in khilaafka lagu xaliyo si is-afgarad ah. marnaba la iskuma dayin in khilaafka lagu xaliyo si is-afgarad ah, iyada oo heshiiska ahaa in arinta marka hore la isku dayo in lagu xaliyo hab is-afgarad ah ka hor intaan maxkamad la isla imaan. hase yeeshee nasiib darro dacwadaha wuu baalmaray waajibka asigana waxaa saarayo heshiiska oo galay saarayo waajibaadka ku xusan qodobkan oo qodobka 11 ee heshiiskan ah, iyadoo aan la isku oofray in koodii hore la isku dayo in lagu xaliyo hab is-afgarad ah, iyadoo aan la isku dayo wax is-afgarad ah ayuu heshiiska ayuu dacwadaha wuxuu keenay maxkamadda kiiskan. sidaas la mid ah mudane gudoomiye qodobka 1 ee heshiiska oo ah heshiiska shaqaalaysiinta labada dhinac u dhaxeeyay faqradiisa amba faqrada 1 waxay qoraysaa sidatan: haddii ay soo baxaan murano una dhaxeeya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, ugu horeen heshiiska shaqaalaysiinta ayaa la hirgelinayaa ama la dabaqayaa. waa qodobka 1 faqradiisa ee heshiiska shaqaalaysiinta oo u dhaxeeya labada dhinac. haddii uu soo baxo muran una dhaxeeya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, ugu horeen heshiiska shaqaalaysiinta ayaa la hirgelinayaa ama la dabaqayaa. qodobkan wuxuu ku waajibinayaa labada dhinac in marka hore inta arinta amba khilaafka doo yimaado lagu xaliyo si waafaqsan heshiiska, oo heshiiska ayaa la dhaqan gelinayaa ama la dabaqayaa. qodobkan waxaa ku cad in heshiiska oo yahay maadaama uu yahay sharci oona noqday labada dhinac sharci oo noqday, waxaa qodobkan si cad u sheegayaa sharciga mudnaanta koowaad leh ee la dabaqi doono inuu yahay heshiiska. sidoo kale qodobka 5 faqradiisa amba d ee heshiiska waxay dhigaysaa sida taayidna sareynta heshiiska. haddii ay soo baxaan murano qodobka faqrada d aqrina, haddii ay soo baxaan murano una dhaxeeya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, ugu horeen waxaa asal ahaan dib loogu laabanaa qodobada heshiiskan shaqaalaysiinta. qodobada heshiiskan shaqaalaysiinta waa soo sheegna waxa waaye in markii muranta soo baxo in marka hore lagu xalin doono hab is-afgarad ah ka hor intaan maxkamad la isla imaan. haddii ay soo baxaan murano una dhaxeeyaan shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha,
ugu horeen waxaa asal ahaan dib loogu laabanaa qodobada heshiiska shaqaalaysiinta. mudane gudoomiye sida ku cad qodobkan haddii muran yimaado waa in marka hore la hirgeliya amba la dabaqaa heshiiskan. haddii muran yimaado waa in marka hore la dabaqo amba la ablaagareeyo la hirgeliyo heshiiska shaqaalaysiinta labada dhinac u dhaxeeyo. qodobadan waxay si buuxda ugu xiran yihiin qodobka 11aad ee heshiiska oo aan kor ku soo xusnay. oraada amba weedha ah waa in la hirgeliyaa heshiiska waxay keenaysaa waajibaadka ku xusan qodobka 11aad ee heshiiska oo tibaaxaysa in muranka lagu dhameeyo si is-afgarad ah haddii uu yimaado. haddii simida lagu guuldareysto la aadi doono maxkamad awood u leh. mudane gudoomiye wax tallaab ah oo dhanka is-afgaradka dhankiisa loo qaaday ma jiraan. wax tallaab ah haba yaraatee oo dhanka is-afgaradka oo loo qaaday ma jiraan. mudane gudoomiye sida ku cad qodobka 144aad ee xeerka madaniga Soomaaliyeed heshiiska waa sharci labada dhinac ilaalintiisa hogaansanaantiisa dowladdiisa waa waajib saaran labada dhinac. sidaa darteed waxaa waajib saarnaa shaqaalaha oo dacwada ah in oo raaco heshiiskan shaqaalaysiinta oo marka hore la isku dayo in si afgarada lagu xaliyo ka hor intaan maxkamadda isla iman. isku soo aruurinta amba soo koobida qodobadan kor ku soo xusnay waxay si cadaan ah oo muuqata u sheegayaan waajib ahaanshada ku xalinta khilaafka si afgarad ah marka hore ka hor intaanan maxkamadda isla aadin. mudane gudoomiye sharciga lagu xadgudbay kaliya ma ahan heshiiska kan ee dhinacyada u dhaxeeya balse waxaa sidoo kale si indha la'aan ah loo dardaray amba la baalmaray sharci dhaqangalka ah dalkeena. waa sharciga shaqada iyo shaqaalaha sharci number 65 Oktoobar 1972 soo baxay kaasoo dhaqangalka ah dhulkeena. gudoomiye sidaan bilaa ku sheegnay dacwadani waa dacwad shaqo dabeecadda ay leedahay darteed inay u dhaxayso qof loo shaqeeyo iyo shaqaale. loo shaqeeyaha waa qof leh shakhsiyad qaanuuni. loo shaqeeyaha wuxuu noqon karaa labo qof qaanuuniyan u jiro iyo qof dabiiciin u jiro oo si rabbaani u jiro. qodobka koowaad ee sharciga shaqada shaqaalaha ay ku caddahay kambaniga waa qof leh shakhsiyad qaanuuni si qaanuuni ay u jiraan. sidaa darteed wuxuu geli karaa heshiis wuuna ka bixi karaa. sharciga shaqada iyo shaqaalaha sharci number 65 Oktoobar 1972 waxaa ku xusan habraac loogu talagalay inay maraan dacwadaha shaqo. habraacaas oo ka duwan dacwadaha kale. gudoomiye muranada shaqada la xiriira waxay leeyihiin jid ay soo maraan ka hor intaan maxkamadda la isla iman. si gaar ah muranada noocan oo kale ah waa inay soo maraan laba sida ku xusan qodobka 134aad ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha. noocan oo kale marka dhahay waxaan ka wadaa waa dacwad shaqo midna waa qof caadi iyo waxa u dhaxaysa hal qof iyo shaqaale loo shaqeeyaha midna waa dad collective ah iyo dad oo dhinaca kale loo shaqeeyaha ah. dacwadda marka waa hal qof oo shaqaale ah iyo loo shaqeeyihii ay ka dhaxaysa. gudoomiye garsoore aniga ka faa'iideysanaya waqtiga waxaa maxkamadda ka hor cadeynaynaa heerarka ay soo maraan dacwadaha noocan oo kale inta sida ku cad sharciga shaqada iyo shaqaalaha sharci number 65 qodobkiisa 134aad ee sharcigaas ayaa qeexaya habka iyo heerarka ay tahay inay maraan dacwadaha ama muranada la xiriira shaqada. qodobka 134 ee sharciga shaqada iyo shaqaalaha sidaan sheegay dadka shaqada iyo shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha shaqaalaha wuxuu noqon karaa hal qof ama wuxuu noqon karaa koox amba wadareed koox wadareed noqon karaa.
qodobka 134 wuxuu quseeyaa marka muranka shaqaalaha uu yahay hal qof kaliya aynan ahayn dad aruursan oo amba wadar ah qodobkan wuxuu jideenayaa habka ay tahay inay soo marto haddii shaqaalaha uu hal qof yahay muranka dhashto qodobka 134 kow muran shaqo oo shakhsi ah waxaa gudbin kara mid ka mid ah labada dhinac iyadoo loo gudbinayo sarkaalka degmada ay u qaabilsan muranka shaqo waana in lagu xaliyaa muddo 14 maalmood gudahooda marka muranka shaqada waxaa gudbin kara laba dhinac midkood oo uu gudbinayo heerka degmadu sida ku cad qodobkan 134 faqradiisa koowaad faqrada labaad isla qodobkan waxay leedahay intaa kadib haddii loo gudbiyo degmada oo degmadii leesla aado oo 14 maalin lagu xaliyo amba lagu xali waayo haddii dhinac ka mid ah dhinacyada muranka u dhaxeeya uusan ku qancin go'aankii laga soo saaray wuxuu u gudbinayaa wasaaradda centralka u gudbinaya wasaaraddan hadda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay noo tahay